وقصة رنتي قف والباء كأوهنيسو وعلي هاي عبد الملك ابن مروان وحقيقي ما ذا برويل أن يرى أو شاب أو هدنا أوينا يا أو مروغيسن مركاسا وحو يريبوري يا أمير المؤمنين إني ارتكبت ذنبا بوري عظيما وحان كل عيبور الذنب آد وين فهل لي من توبة ما نلاهي wax tawba ah maadaama dambi weyn aan ku dhacay in qofku inuu iskarto dambiga uu sameeyaaba wax weyn aba dib wuxuu ka taagay qofku intuu dambi galo inuu haddana garwaaqsanaynin ba inuu dambi galay marka wuxuu yiri wax tawba amaan leeyahay marka Abdulmalik ibn Marwan abaab wuxuu weydiiyay dambigaad aad gashay muxuu yahay wiilkii shaabka dhalinyarada baa wuxuu yiri dambigayga aad buu u weyn yahay dambigayga waa dambi cadiim aad u weyn Abdulmalik ibn Marwan wuxuu ku yiri wama huwa afatub ila Allah war dambigaada muxuu yahay ilaahina u toobad keen fa innahu yaqbalu tawba an ibadihi wa ya'fu an as-sayyi'at war ilaahi u toobad keen ilaahi tawbada wuu aqbalaa adoomihiisa tawbada wuu ka aqbalaa sayyi'aadka iyo xumaantana ilaahi wuu dhaafaa ee tawbad keen wiilkana wuxuu la taagan yahay dambi weyn baan galay waa murugaysan yahay waa gubanaya wiilkii baa wuxuu yiri yaa amiir almu'miniin waxaan ahaan jiray buuri nin qubuurta qufta dadka markay dhintaan oo laga kala galbado intaan u daba maraan qufan jiray buuri wadamaha carabtana qaarkood mashhuur ku ahaan jireen dad qubuuraha quftaan garanaysaan maqaalkii Masar ka caam noqday ahaa رحم الله نباش الأول كي هوري قبرك قفاني إلهي هاونا عريستو إلا نين قبرك قفوءها دادك وحي مارتا كفانه لو حبالي بوكالاسو بيحي جري مركاسو انتو نقضو ديبو سيقدان جري ويلكيسي مركا وود انتي ويلكيسي باكا لو وريغي ويلكيسي مركا وحال يري وحي رغانا كفانكو كفراني نعوذ بالله وحي هوانا نحمان بوكو سمين جري مركاسي دهان بالي كي هوري الله هاونا عريستو كي هوري دامي marka waa wax jir jiray way marka wuxuu yiri waxaan ahaan jiray dadka qubuurta quftaan waxaan arkay buuri qubuurta intaan qufanayo waxyaalo cajiib ah waxyaalo iga argagaxiya oo i ajab galiya baan arkay ilaa waxaad ogtiin walaalayaal meesha yare godka ah imma hufratun min hufar nar wa imma rawdatun min riyad aljanna imma inay noqoto god oo godaha naarta ah imma inay noqoto janno oo jannada beeraha beer oo beeraha jannada ah meesha umbuna war yaala adduunka nin walba asaga isla quman asaga isla toosan asaga cibaado wanaagsan laakiin meesha kala baxa oo qofku maartay wuxuu la imaado lagu abaal marinayo waa qabriga marka wuxuu yiri waxyaalo cajiib aan qabriga ku arkay iyo umuur cajiib ah wuxuu yiri ta koobaad Abdulmalik ibn Marwan baa wuxuu weydiiyay maxaad ku aragtay qubuurta maxaad ku aragtay inta qufaysay حكوا عجيبنا ما حد كواركت وحوري يا أمير المؤمنين قبري بان مالن قفاي بول هبين بان قبري قفاي بول مركاسا وحان أركاي بوري فرأيت صاحب القبر قد حول وجهه عن القبلة وحان أركاي نينك قبري يالي أو وجهي سلق اللي حق قبلة لقفك ما كان حوالينه أو عاسينه حق قبلة اللو جيدية استمركب ولا جيدية قبلة دي بقى جيدية aad baan u cabsaday buuri qofka hadda la xabaalay oo isla saacadihi ba qibladii laga wareejiyay oo laga leexiyay wa aradtu waxaan doonay buuri al-khuruuj inaan baxo oo qabriga si degdega aan ooga baxo wa ida biqaa'il qof baaba wuxuu ileeyahay buuri maxaad u bixi ala tas'al an al-mayt limadha huwila wajhu an al-qibla ma weydiisid war meydkan maxaa wajigiisa looga leexiyay qabri maxaa looga leexiyay qiblada intaadan bixin ma weydiisid baa yiri buuri meydka maxaa wajigiisa qiblada looga leexiyay faqultu waxaana limadha huwil maxaa loo leexiyay oo qiblada looga leexiyay markaas la igu yiri buuri li'annahu kana mustaqifan bi salaah nin wuxuu ahaan jiray markuu adduunka joogay salaadaha fududaysto dad waxaa jira salaadaha fududaysto hayya ala salaah hayya ala al-falah bu maqli ma la yataharrak ma kaco meelahaas maarta iska fadhiya meelahaas fadhi ku dirirka iska fadhiya iska kafeeya damba salaada kama galo
wuxuu ka soo gaarana waa iska tukadaa wixii ka tagana wuu arkaa mustakhifan buu ahaa mid salaada fududaysto haadaa jasaau mithlah baa la yidhi buuri asagoo kale abaalmarkiisa waa sidan in qiblada laga leexiyo markaasaa wuxuu yidhi wiilka yaraa asagoo weli qisadii kasii sheekaynaya ee waxyaalihii qubuurta uu ku arkay mid labaad baan qotay buuri oon qufay qabrigiisi qabri labaad baan qufay fa ra'aytu waxaan arkay buuri saaxibuhu saaxiibkiisii oo qad khuwila khanziiran doofaar loo bedelay nacuudu billah qofkii hadda la dhigay jirkiisa iyo jasadkiisa khinziir iyo doofaar baaba loo bedelay buuri markaasaa wuxuu yidhi waqad shudda bisalaasil silsiladana waa lagu xiray buuri silsiladana waa lagu xiray oo waa lagu adkeeyey iyo wal aglaala fii cunuqihi silsilad iyo xarko baa lugaha iyo gacmaha looga xiro lagu adkeeyey buuri markaasaan cabsaday buuri waxaanan damcay buuri inaan baxo oon cararo wa idaa biqaa'il yaquul mid baaba wuxuu leeyahay alaa tas'al can camalih walimaada yucadab marma weydiisid camalkuu la imaaday ee sidan loo yeelay iyo maxaa loo cadaabayaa markaasaan inuu limaada war qofkan maxaa sidan loogu cadaabayaa oo daafaar loogu bedelay oo waxaana silsilad ah iyo waxaana xarig ah loogu xirxiray nacuudu billaah faqaala waxaa laygu yidhi buuri